Gobolka Saaxil ee qaaradda Afrika waxa uu muddo dheer astaan u ahaa abaaro joogto ah, gaajo, iyo ku tiirsanaanta baahsan ee loo qabo kaalmada caalamiga ah, iyadoo hoos u dhaca baaxadda leh ee kaabayaasha dhaqaalaha iyo maamul xumadii soo jireenka ahayd maanta laga dhex arkayo isbeddelka weyn ee ka socda qaaradda. Dowladda Burkina Faso ee uu hogaamiyo madaxweyne Kabtan Ibrahim Traoré ayaa bilowday mashruuc weyn oo biyo-xireen iyo ceelal qodis ah oo ku kacaya $145 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Mashruucan ayaan ahayn oo keliya mid lagula tacaalayo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada, balse waa bayaan cad oo ku saabsan madax-bannaanida qaranka iyo ka bixitaanka ku tiirsanaanta dowladaha reer galbeedka. Si loo fahmo sababta dhabta ah ee ka dambeysa dhibaatada biyaha ee Burkina Faso, waa inaynu dib u jaleecnaa taariikhdii gumeysiga iyo marxaladihii siyaasadeed ee dalku soo maray, sida uu qabo Professor William Moseley oo ah aqoonyahan baare iyo qoraa u dhashay dalka Mareykanka ah, ayaa sheegay in biyo yaraanta iyo cunno yaraanta Afrika aysan ahayn oo keliya musiibo dabiici ah, balse ay tahay wax salka ku haya go'aano siyaasadeed. Xilligii gumeysiga Faransiiska, maamulkii Faransiiska ee xukumayay dhulkii loo yaqaanay Aberfoyle waa magacii hore ee Burkina Faso waxa uu xoogga saari jiray dhisidda wadooyin tareen si loogu gudbiyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalalkaasi ay caanka ku yihiin sida cudbiga amaba suufka iyo macdanta, si loo gaarsiiyo xeebaha si looga sii dhoofiyo magaalada Paris. Ma jirin mudnaan gaar ah oo la siin jiray dhisidda nidaamyo waraab oo beeraleyda gudaha ka caawiya in ay ka badbaadaan xilliyada jiilaalka. Kacaankii madaxweynihii hore ee Burkina Faso Thomas Sankara ee curtay sanadkii 1983 ilaa 1987, Sankara waxa uu isku dayay inuu beddelo nidaamkaas gumeysigu ku tiirsanaa, waxa uuna bilaabay mashaariic waraab oo waaweyn oo ku yaala dooxada Saaru, waxa uuna beeray in ka badan 10 milyan oo geed si uu ula dagaalamo nabaad guurka carrada. 4 sano gudahood waxaa kordhay wax soo saarka dalagga ku dhowaad 75%, iyada oo ergeygii xilligaasi ee qaramada midoobay Jean Sigler uu sheegay in Sankara uu gaajada ka tiray dalka. Kadib markii la khaarijiyay madaxweynihii dalkaas, madaxweynihii ku xigay ee dalkaasi ee talada qabtay Compaoré Blaise ayaa xukumayay dalka muddo 27 sano ah. Intii uu xukumayay amaba xukunka hayay, mashaariicdii waraabka waa ay istaageen, biyo-xireennadii waa ay dumeen, ceelashiina waa ay gureen. Dalkuna waxa uu dib u galay ku tiirsanaanta kaalmada caalamka. Markii uu sanadku soo gaaray 2013, helitaanka biyaha nadiifka ah ee dhulka miyiga ah waxa ay hoos uga dhaceen 63%. Kacdoonnadii jihaadiyiinta ee abuuray xasaradaha kale ayaana uga sii daray. Amni darrada baahsan ayaana keentay in ka badan 1 milyan oo qof inay barakacaan. Dhulal badan oo beero ay ku yaaleen isla markaana ay ka socdeen howlo tacab ayaana la isaga soo hayaamay, waxaana halkaasi ku baaba'ay dhammaan dhulalkii deegaanka ahaa ee ay dadku degganaayeen. Bishii Sebteembar sanadkii 2022, Kabtan Ibrahim Traoré ayaa la wareegay awoodda dalka, isaga oo aaminsan in madax-bannaanida dhabta ah aan lagu dhisi karin oo keliya hadal, balse ay u baahan tahay ficil. Waxa uuna madaxweyne Traoré meel mariyay qorshe 6 sano ah oo dib loogu habaynayo dhammaan kaabayaasha biyaha ee dalka. Mashruucan oo u qaybsanaa 8 gobol oo istiraatiiji ah ayaana ka koobnaa tirooyin iyo yoolal waaweyn. Tiirarka ugu waaweyn mashruucan waxaa ka mid ahaa dib u habaynta biyo-xireennada. 35 biyo-xireen oo waaweyn oo qarka u saarnaa inay dumaan ayaa dib loo dhisayaa si loo yareeyo luminta biyaha loona kordhiyo kaydinta. Fidinta dhulka waraabka 788 hektar oo dhul-beereed ah ayaa la hormarin doonaa, iyada oo la isticmaalayo farsamooyin casri ah si loo suurtogeliyo beerashada sanadka oo dhan. Kaydadka biyaha 15 keyd biyo oo muhiim ah ayaa dib loo buuxin doonaa si loo hubiyo shay joogto ah oo loo isticmaali karo xoolaha iyo beeraha. Maamulka bulshada 80 guddi oo ka shaqayn doona biyaha oo dadka deegaanka ay hogaaminayaan ayaa la samayn doonaa
si loo hubiyo in maamulka biyuhu uusan ku ururin oo keliya xafiisyada fogfog. Beeridda kalluunka iyo soo celinta dhulka. 15 barkadood oo cusub oo kalluunka lagu beerayo ayaa la samayn doonaa, iyada oo la soo celinayo 5,000 oo hektar oo ah dhul nabaad guuray si loola tacaalo lama-degaanka sii fidaya. Sanduuqa biyaha ee qaranka. Waxaa la samayn doonaa sanduuq lacageed oo loogu talagalay in lagu maalgeliyo mashaariicda mustaqbalka iyo cilmi baarista joogtada ah si ay mashaariicdani u noqdaan kuwo sii jira mustaqbalka fog. Midda ugu muhiimsan ayaa ah in mashaariicdan inta badan laga maalgelin doono dakhliga gudaha ee dalka, taas oo waafaqsan dooda dhaqaaliyahanka John Young oo sheegay in dowladdu ay tahay inay horkacdo maalgashiyada kaabayaasha aasaasiga ah ka hor inta aysan muwaadiniintu soo gaarin. Waxa isbeddelka ugu weyn keenay ayaa ah ogaanshaha in dhibaatada saaxil aysan ahayn biyo la'aan, balse ay tahay raadin la'aan. Sanadkii 2017 hay'adda caalamiga ah ee tamarta iyo atomikada ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa soo saartay warbixin muujinaysa in dhulka hoostiisa ay ku jiraan kayd aad u weyn oo biyo nadiif ah. Saynisyahano ka socday 13 dal oo saaxil ah ayaana loo tababaray inay adeegsadaan aqoonta nukliyeerka si ay u ogaadaan tayada asalka iyo da'da biyaha dhulka hoostiisa fadhiya kumanaanka sano. Khariidadeynta ayaana muujinaysa nidaamyo waaweyn oo biyo hoos fadhiya, kuwaas oo loo isticmaalay Leptako, Gomara iyo weliba Upper Fault. Daraasado kale ayaa la sameeyay sanadkii 2023 waxa ayna muujinayaan in dalka Niger uu leeyahay qiyaastii 50 bilyan oo mitir kiyuubig oo biyo hoos fadhiya ah, taas oo 100 jeer ka badan biyaha dusha sare ee harada Chad. Tanina waxa ay muujinaysaa dhibaatada gobolka haysata in ay tahay farqiga u dhaxeeya biyaha baaxadda leh ee dhulka hoostiisa ku jira iyo isticmaalka rasmiga ah ee beeraleyda ee hadda ah inta u dhaxayso 9 ilaa 12%. Ceelasha ay xukuumadda madaxweyne Traore qodayso ayaana ah kuwo istiraatiiji ah oo loogu talagalay inay biyahaas qadiimiga ah u soo saaraan beeraha casriga ah. Tusaalooyinka taariikhiga ah iyo falsafadda maamulka ayaana ah tixraaca maanta. Waraabinta dhulka oomanaha ah iyada oo la isticmaalayo biyaha hoose waxa ay leedahay tusaalooyin taariikhi ah oo guulaystay, sidii webigii dadku ay sameeyeen ee Liibiya sanadkii 1984. Muammar al-Qadaafi waxa uu dhisay nidaam biyo oo dhuumaha waaweyn ee biyaha ay ka soo qaadayaan saxaraha hoostiisa iyaga oo geynaya magaalooyinka waaweyn ee xeebta ku teedsan. Madaxweyne Muammar al-Qadaafi waxa uu soo saari jiray in ka badan 2.5 milyan oo mitir kiyuubig maalintii, inkastoo madaxweyne Traore uu qaabkiisu ka yar yahay kan Liibiya. Mabda'a injineernimada waa isaga mid. Biyuhuna waa kuwo diyaar ah oo ku jira dhulka hoostiisa, waxaana loo baahan yahay oo keliya go'aano lagu soo saaro. Si ka duwan mashaariicda waaweyn ee kore, madaxweyne Traore waxa uu adeegsanayaa fikraddii Elinor Ostrom oo ku guulaystay abaalmarinta Nobel Prize, kaas oo aragtidiisu ahayd in kheyraadka waaweyn ay si joogto ah u maamuli karaan oo keliya bulshada deegaanka ee iyagu u isticmaalo sida maalinlaha ah. Waana sababta madaxweyne Traore uu u sameeyay 80 guddi ee dadka deegaanka ah oo ka shaqayn doona biyaha. Tan ayaana keenaysa isku filnaanshaha cuntada iyo weliba siyaasadda juqraafiyadeed ee ka jirta gobolka saaxil. Mashruucan biyuhu waxa uu qayb ka yahay qorshe ballaaran oo loogu magac daray Agricultural Offensive oo la bilaabay sanadkii 2023. Bishii May 2024 oo kaliya dowladdu waxa ay beeraleyda u qaybisay qalab beereed oo qiimihiisu uu ku kacayo $140 milyan oo doolarka Mareykanka ah, kaas oo ay ku jiraan in ka badan 400 oo cagaf-cagaf iyo weliba boqolaal bamka biyaha lagu soo saaro. Taas waxa ay keentay in dalka Burkina Faso uu goosto 6 milyan oo tan oo cunto ah sanadkii 2024. Sanadkii 2025 madaxweyne Traore waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisu uu gaaray isku filnaansho cunto, waxa uuna soo bandhigay qorshaha horumarinta qaranka ee sanadka 2026 ilaa 2030.
waxa uuna qorshahan ku kacayay lacag lagu qiyaasay 64 bilyan oo dollar, iyada oo 2 meelood 3 meel lacagtaas laga soo saari doono dakhliga gudaha ee dalka. Isbahaysiga dowladaha saaxil ee Burkina Faso, Mali iyo weliba dalka Niger waxa ay dhisayaan isbahaysi cusub oo ku saleysan madax-bannaani guud ee Afrika. Haddii nidaamka biyaha ee Burkina Faso uu guuleysto, waxa uu tusaale u noqon doonaa guud ahaan qaaradda inteeda kale, isaga oo dhab ahaantii xaqiijin doona doodii Dambes Moye oo ahayd in meertada kaalmada ay curyaamiso hay'adaha Afrika. Inkastoo hamiga ugu weyn uu yahay in la hirgeliyo mashruucan, haddana waxaa jiro khataro dhab ah oo mashruucan uu wajihi karo. 145 milyan oo dollar waa lacag aad u yar marka loo eego hoos u dhaca baaxadda leh ee biyaha dalka. Mashruucu waxa uu waraabinayaa 788 hektar, taas oo qayb aad u yar ka ah markii loo eego waxa loo baahan yahay. Biyaha dhulka hoostiisa ku jira ma ahan kuwa dhammaanaya, balse haddii si xad dhaaf ah loo soo saaro waxa ay guri karaan si dhaqso ah, waana sida hadda haysata dalka Liibiya. Traore waxa uu ka badbaaday ugu yaraan 5 afgembi oo la doonayay in lagu qaarijiyo isla markaana xukunka looga tuuro. Haddii mar kale kooxaha doonaya inay madaxweyne Traore xilka ka tuuraan ay u suurto gasho, waxaa meesha ka bixi doona in mashruucu uu noqdo mid sii jiro. Si kastaba ha ahaatee, saynisku waxa uu xaqiijinayaa in gobolka saaxil hoostiisa ay ku jiraan balaayiin mitir kuyuubid oo biyo nadiif ah. Burkina Faso waxa ay dooratay inay noqoto dalkii soo saari lahaa, iyaga oo isticmaalaya aqoontooda, sidoo kalena adeegsanaya lacagtooda iyo injineeradooda iyo weliba dadka deegaanka. Inkastoo mashruucani uu yahay mid macquul ay tahay inuu guuleysto, haddana waa mid ay ku loolamayaan quwado waaweyn sidii ay u fashilin lahaayeen. Haddaba daawade, haddii halkan nala soo gaartay channelka, subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa muuqaallo iyo sheekooyin xiiso badan.